ومالين وين مركب وحان هذا علينا يورتو وزارة المالية وصرنا ما يسترتي ميزانية دي لوضع تكون يلا بعتن ككون صرنا ما يسترتي وقت يقول قلت هلا قلي وعكلهم هذا علينا يا قلها وزارة وكلا الشقي إني أسور تجليان وزارة المالية إني صرنا ما يسترتو ميزانية ده سيدو كلا أنتي كدودان سوافية وأنسحيي ميزانية ده وقت يقول قلت هلا قلي ميزانية ده لوضع تكون يلا بعتن كمركب كحكومة أهان وحكوس فيسن هيكسيجا يهرو مركب دالك وقرنتي وحا أسكري والبا وإذا ماذا قلب كسيدة سيدة عد مغشين لو كردي $7 تاسو غنددي سكر جيسا $100 ومشارة صدن راشينا $7 لو كردي لبا بقول يصدن راشينك لوجو سماية حرايق يدقين وبالله في عن لكن وحي نجا استاهلان نقول الليهين انت اسكبدن تاسو معناه هدي هاي مركا waxaan u soo jeesanay inaan ciidankeena kadib shaqada dheereed ee dib habeynta inaan tayadooda dhaqaale wax ka qabano waa sanadkii ugu horeeyay waa bilow waana la sii wadi doonaa waxa kale oo miisaaniyadu kaliya ay wax ku kordhisay arrimaha waxbarashada arrimaha caafimaadka iyo arrimaha dib u dhiska dalka oo kaliya dhammaan xafiisyada dawladda oo soo codsaday in loo kordhiyo dakhliga xafiisyadooda oo ugu horeeya xafiiska kharashaadkooda aan dhihi la raali hada dhammaan xafiisyada dawladda oo soo codsaday in la kordhiyo kharashaadkooda oo ugu horeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha kan madaxweynaha kuwa guddoonka baarlamaanka wasaarad walba hay'adaha dawladda kulligood hal shilin looguma kordhin inta aan ka ahayn inta aan hore u soo sheegay miisaaniyaddu sidaas daraadeed waxay tilmaamaysaa dawlad ahmiyadeedu ay tahay أمانو يا أديك مركب ميزانية دان وعن كتل المامينا إن هدف كلابدي لوادا كوني لواتن كدلك يوجهين يسوح لي هذا أمانة يا أديك وعن ربا قلها يجي وزير ده إن أوجا ما هذا عليه شغله حوجنا ويدلك نصوغ بتن حدي مركب ضدك غار أنا من سنين شغله عدلك نصوغ بتن مركب عودن كإيمان يسين بقولي لحد يسديد مليون هذا ميزانية ده أو تمدن ما أنت واحد عن حسان أفر بقول $60 مليون نمبر صح بقول بقول يتضواتني أفر إنك بدن أي كروك عضي ومعناه ذو حيث هاي ما يسنتي مادين شغلة صداد دينك قبلنا العلز مركب أنت ودن كأجوكتين إنك بدن $20 مليون أي سنة والبكروك عيسي والسنة كحد أقدم بي وها سنة كي حق ugu badan uu galay oo aad kordhiseen $120 milyan dakhliga soo galay dawladda waana ku mahadsantihiin hadii marka shaqada aan wadno aan sii wadno oo Febraayo dalka deynta laga cafiyo meesha aan ka tirinayno maada iyo malaayiinta waxaan soo gaarsiinaynaa dalka in loo bedelo ba iyo bilyan